kulan wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba ku soo dhowaada warka subaxnimo. Waa subaxnimo Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha Abriil sanadka 2020. Qodobada aad warkayaga wararka sugan 24 aad ka dhageysan doontaan waxaa ka mid ah. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa lagu wadaa in maanta oo Jimco ah lagu aaso magaalada London. Dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto dadka sida dhuumaaleysiga qaadka u soo geliya gudaha dalka Soomaaliya. Weerar bam gacmeed oo xalayta lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Jowhar iyo mas'uul ku dhaawacmay weerarkaasi. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay qofkii labaad in uu u dhintay cudurka coronavirus gudaha dalka Soomaaliya. Meydka ruux bajaajla ah oo saakay xilli hore aroora lagu arkay isgoyska 14 Oktoobar ee magaalada Muqdisho. Madaxda sare ee dawladda Sacuudiga oo karantiin la geliyay dhammaan familka boqortooyada. Intaasi waxay ahayd qodobadii wararka ugu door korona. Dhageystay haddii aad ku cusubtahay channelkan fadlan subscribe dhe. Waa channel aad kaga bogo doontaan wararka caalamka oo kaliya. Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada London isagoo dhawaan la xanuunsanaya caabuqa coronavirus markii dambena uu geeriyooday. Nuur Cadde ayaa la aasi doonaa 2 duhurnimo waqtiga magaalada London iyadoona geeska Afrikada bari ay tahay 4 galabnimo. Nuur Cadde ayaa ra'iisul wasaare soo noqday sanadihii 2007 ilaa 2009 isagoona xilli adag ka soo shaqeeyay dalka Soomaaliya. Waxayna qoyska marxuumka shacabka Soomaaliyeed ay ka codsadeen in ay u soo duceeyaan marxuumka geeriyooday. Dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto dadka sida qarsoodida ah u soo geliya qaadka gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo ayaa sheegay in ay jiraan dad si dhuumaaleysi ah gudaha dalka u soo geliya waxaana loo baahan yahay wasaaradaha ku shaqada leh in ay tallaabo sharci ah ay ka qaadaan. isagoo ka hadlayana waxa uu arrimaha jaadka iyo badeecadaha aad ulama socdo anaga qaybteen waxaan aad ula macaamilnaa bini'aadanka socdaalka bini'aadanka la macaamilnaa arrimahaas waxaan isleeyahay kastamyada iyo wasaaradaha kale inooga habboon hase ahaatee waxyaabaha weli aan la joojin waxaa ka mid ah badeecooyinka iyo waxyaabaha kaarkooga iyagu oo weliba ogeysiin la sameeyo ayaa socda dalka markasta way dhici kartaa in weligeedna Soomaalidu way samayn jirtay marka awaamir noocaana ay yimaadeen in laga xeeladaysto oo farsamooyin kale Dawladda Soomaaliya ayaa xayiraad saartay safarada dibadda iyo gudaha laakiin weli waxa soo ifbaxaysa in qaadka si dhuumaaleysi ah loogu soo geliyo gudaha dalka Soomaaliya. Arrintani ayaa waxay walaac ka muujiyay shacabka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta dawladda iyagoona sheegay inay cabsi ka qabaan in uu sare u qaado faafitaanka cudurka safmarka ah ee coronavirus. Faahfaahin dheeri ayaa ka soo baxaya weerar bom gacmeed oo xalayta lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi uu ku dhaawacmay mas'uul ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Weerarka xalay ayaa dhaliyay khasaaro iyo dhaawac oo uu ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo maamulka gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda maamulka Jowhar Ismaaciil Warsame Faarax waxaana goobta soo gaaray ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalka ay halkaasi ka sameeyeen ayaanan jirin wax faahfaahin dheeri ah ay ka bixiyeen in ay cid u soo qabqabteen. Dhanka kale mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta magaalada Jowhar ayaanan weli wax war ah ka soo saarin weerarkii bombaano ee xalayto lagu weeraray hotelka ku yaala magaalada Jowhar. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay in uu jiro qof labaad in uu u geeriyooday COVID-19 sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamed Saciid in uu jiro qof labaad oo u geeriyooday caabuqa coronavirus. waxa uu warkiisa ku daray in cisbitaalada ay jiifaan dad xanuuno kala duwan qaba sidoo kalena aanan la hubin tirada rasmiga ah ee cudurka coronavirus dadka qaba sidoo kalena laga yaabo in qof labaad in uu u geeriyooday caabuqa coronavirus.
wararka baraha bulshada la isla dhex maraya ayaa waxay sheegayaan in qofkii ugu horreeyay ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay shaacisay inuu ahaa qof been abuur ah balse weli wax war cad ah ma aysan ka soo bixin dowladda federaalk ee Soomaaliya. saakay waxaa xilli aroor ah meed uu yaalay isgoyska 14 Oktoobar ee magaalada Muqdisho ay ku waabariisteen dadka ka agdhow deegaankaasi. wararka aynu ka heleyno ayaa waxay sheegayaan ruuxa geeriyooday in uu ahaa darawal wada bajaajla ah. marxuumka ayaa waxa ku yilay dhaawac mindi ama toorey ah in uu u geeriyooday. waxaa goobta soo gaaray ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya mana jirto wax faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan marxuumka geeridiisa cidii ka dambeysay. iyadoo shacabka Soomaaliyeed ee ka agdhawaa isgoyska 14 Oktoobar ay ka argagaxeen in weerar ceenkani oo kala ah ay dib ugu bilowdaan magaalada Muqdisho. wararka ka soo baxaya dalka Sacuudi Carabiya ayaa lagu sheegay in 150 ruux oo ka tirsan qoyska boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya laga helay cudurka coronavirus. waxaa ka mid ah dadka laga helay cudurkaasi Amiir Faisal bin Bender bin Abdulaziz oo ah gudoomiyaha magaalada Riyadh. warbaahinta ayaa sidoo kale waxay ku sii daraysaa in ay iskarantiileen boqor Salmaan bin Abdulaziz oo ah boqorka talada haya iyo dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya boqor Maxamed bin Salmaan bin Abdulaziz kadib markii qoyska talada haya uu ku faafay cudurka coronavirus. waxaana guud ahaan dalka Sacuudi Carabiya u dhintay inta imika la ogsoon yahay 41 ruux. gabi ahaana waxa uu soo ritay ku dhawaad 3,000 oo ruux cudurka coronavirus. intaas ayaan ku soo koobayaa warkii subaxnimo. warka xiga caawa ayaad maqli doontaan. sidaa iyo nabadgelyo.